hadday taasi noqoto waxa weeyaan Soomaaliya iska duubnaa bay noqonaysaa intaynu isdili lahayn waa inaan iska duubnaa Soomaaliya wax la qaybsanaa 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 Soomaaliya ka suurta gali maysan laba reer ku heshiiyaan oo si hagbad isku dhiidhiibaan oo yiraahaan maanta waa idinka maanta taas wax suurta gali mayso hadday taasi noqoto waxa weeyaan Soomaaliya iska duubnaa bay noqonaysaa intaynu isdili lahayn waa inaan iska duubnaa Soomaaliya wax la qaybsanaa dhanka kalena waxaa maanta istuudiyaha BBC-da magaalada Nairobi booqday Faysal Cali Waraabe oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada ee Somaliland waxaana uu ka hadlay walaaca uu ka qabo shir uu sheegay inuu ka dhacay magaalada Burco iyo hanaanka doorashada Cabdifataax Ibraahim Cagayare ayuu u waramay waxaan hambaleynayaa gudida doorashooyinka ilaa hadda xilkooda si fiican bay u qabteen hawl fiican bay qabteen anaguna waxaan diyaar u nahay inaan iskarab taagno in la dhameystirno shaqadooda haddii la yiraahdo kalsooni intee leeg ayaad ku qabtaan marka in guddiga doorashada oo haatan muujiyay in hawshoodii ay gabagaba tahay ay qaban doonaan doorasho xor iyo xalaala waxay ku xidhantahay dadka behaviorkeeda ku xidhan tahay sida dadka foodka bixinaya si asxaabta u macaamisho oo u dhaqanto aad baan uga warwar qabaa imanka waxa ka taagan Somaliland siba labadii maalmood u dambeysay shirka Burco ka dhacay ee qabaa'ilka ah salaadiintu ilaahay haddaan reer hebel lahay heshiis baanu galay taas waxay tusayeen waddankii lagu celiyay 1994kii oo qabaa'ilkii 1994kii dagaalamayeen hadday asxaabtu ku kala fayleen la doonaya ku kala faylaan taas waan warwar ka qabaa laakiin waxaan ku kalsoonahay shacbiga reer Somaliland inaanay odayaasha naftooda u shaqaysanaya aanay maqline ay asxaabta ku kala saaraan waxyaalaha bixin doonaan yaad kartidooda iyo akhlaaqdooda iyo si wadanka u wad lahayn laakiin idinka idinku eedeynaya dad tihiin madaxda sarsare ee xisbiyada tartamaysa inaad dhiiri gelinaysan arintaas oo aad lahaydeen nin walba cidiisa ha taageero waxaan ka xumay waliba shirka Burco wuxuu ahaa shir dawladda ee dabada ku wado qabaa'il ku samaysan taasna waxay keenaysaa in dadku nacaba Somaliland inay siiso laakiin dawladda kaliya aad ma saarna laftigiina idinku eedeynaya mucaaradka waxa weeye waan la dagaalaminay laakiin waxa maanta wadda siiyay dawladda shirka ku qabatay Burco Somaliland ka suurta gali maysan laba reer ku heshiiyaan oo si hagbad isku dhiidhiibaan oo yiraahaan maanta waa idinka maanta taas wax suurta gali mayso hadday taasi noqoto waxa weeyaan Soomaaliya iska duubnaa bay noqonaysaa intaynu isdili lahayn waa inaan iska duubnaa Soomaaliya wax la qaybsanaa bal ka waran marka kalsoonida aad ku qabtaan guddiga doorashooyinka guddiga maxay qaban kartaa hadday dawladdii waxwadeeyada qudhadeedii wixii xumaantii gacanta ka wado oo qabaa'ilkii dhiirgelinayso oo inta faraha ka qaaday dawladdii socodkeedii ay shirar ku qabanayso Burco Faysal marka ma u muuqataa in markay doorashada soo dhawaatay in aad qaab cusub la imanaysid oo aad dareentay inaadan wax badan ka keeni doonin doorashada eedan aad bilaabaysa haatan maya doorashada anaga shilna bidnaa kali waa hadda u soconaan dadka u sheegino barnaamijka wadno laakiin waxa weeye wixii qaska la sameeyo oo la sameeyo qabaa'il la heshiisiinayo oo la reer ay noqon jeegan samaysano waa wax weey dalka dhibaato u keenaya waan ka hortagina marka taa macnaheedu ma waxa weeyaan wixii ka soo baxa doorashada ma aqbalaysid doorashada wixii ka soo baxay waan aqbalinaa hore waan anigu aqbali jiray laakiin waxaan arkayaa doorashada horteedba inay ay qalalaasi dhacayo oo hadda qabaa'il la isticmaalo oo la isticmaalin magaranaysa siyaasad marka anaga ugu baaqina dadka waa aragtaan labada garab ee qabiilka kayciyay meesha lagu baxsan karaa ee dadka midayn kartaa in qabiil dabada galinini waxa weeye xusbigeega iyo musharaxiinta weey waa tahay marka arintan walaacaad muujisay ma u gudbisay cidda ay qusayso مثلا dawladdu eedeynaysaa dawladdii ma u gudbisay ku tiro ruuxan u soconaya naga joojiyo waan u gudbiyay xogayaha madaxweynaha gaarka cali xalitaan u duubay aan u fariin u faray waana wax arintaasi oo arin xun ah ku kacdeen taas waxay keentay markaa in maantaba abaabul la galo hargeysa laga galo xalayto ka kacay wala noo heshiiyay ay qodobka kana bilowdo marka waxaasoo waxa ka mas'uula dawladda iyo xisbiga kulmiye ayaa ka mas'uul waa tahay marka shakhsiyan Faysal hadaan adiga ku weydiiyo su'aal adiga ku taabanaysa marka dhowr jeer hore ayaa tartantay oo aad doonaysid inaad noqotid madaxweynaha Somaliland siday noqoto waad guuldareysatay dad baa waxay kugu eedeynayaan dadkii kale ee hanka siyaasadeed lahaa ee xisbigaaga ku jiray inaad caburisay saadaraadin ay bilaabeen in raggii waaweynaa aad ku tashanaysay inay meeshii ka baxaan marka soo lama gaarin xilliga aad dhihi lahayd raggii yararka ee soo baxay socda idinka qabta yani wax ahamad leh oo potential leadership leh iman ninkii ku dambeysay ogeed waa ku fogaan ku dhagaan maayo waa knows wala yaqaanaha chance waanu siinay uu socon waaye xusbiga mar daba dhacma doonino waxaan doonaynaa inuu maanta guusha waa markiisiye marka cid maanu caabinay cid leh leadership wadan hogaamin karta iyo xusbi ayaan noo iman insha Allah haddaan abuurinaa inaan dad kaadar cusub oo magaranaysa technocratisa oo backgroundkooda aan shaki ku jirin oo wanaagsan yahay ya ayaan soo saarnay insha Allah taala marka sanadkan rajo fiican baad leedahay sanadkan waa sanadkeena insha Allah taala
somaliland ixtiraafkan u keenayna waan midaynay anaga madaxweyne ku-xigeenka ka keenay reer sool ka keenay xusbigii dadka mideeya weeyaan dadka ma qaybino qabiilku ma qaybino waxaan sheegnay rajada somaliland gacanta somaliland cud bay ku jirtaa insha allahu tacaala shacabkuna sidaasuu ogyahay faysal cali waraabe oo ah musharaxa xisbiga ucid uga qaybgelaya doorashada madaxtinimada somalilan oo u warramayay waryaha BBC da cabdifataax ibraahim cagayare